السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيكا كستا حقيقة وباهنتهاي warqadan sacuudiga ka soo baxday ee qunsulka uu ku lug leeyahay ee Sayid Cali badbaadada u noqon rabta balse aan caga badan ku taagnayn xaqiiqadeeda ayaan idin la wadaagayaa sidoo kale ehelka Luul Cabdicasiis xogtii aan ka helnay sidoo kale waxaan idin la wadaagayaa sidoo kale to ilmaha ayeeyadood oo ninkan awoow u yahay uu sheeganayo iyaguna waxay aaminsan yihiin aragti ahaan xabsiga dhexe khuddiisa ilaamaha amniga xogaha aan ka helnay dhinaca garsoorka waliba si gaar ah maxkamadda sare kiiskiisa ninkan hadda waxay ka yeelayso in la diray inaan la dirin xogo badan ayaa idin haya oo cadeymahooda wata aan ku soo dhawaana marka hore haddii aad ku cusub tahay YouTube-kan muhiim waaye inaad ku soo biirtid okay Sayid Cali waxaad ogeedeen in maxkamadda gobolka Banaadirna dil ku xukuntay maxkamadda racfaanka uu abiil u qaatay iyadiina ay ku raacday tii hore sidaana loogu xukumay dil toogasho ah rafasho badan iyo dadaal aan yarayn ayuu looyarkiisa iyo dadka isaga ma aragtay taageersan ama ehelkiisa ahba ay ku jireen oo ah ninkan sidoo uga badbaadi lahaa ugu yaraan falka dilka ah ama xukunka dilka ah balse uu raba kaliya in xukun caadi uu ku dhaco sida xabsi haddaba raadka kaliya ama isha kaliya ee u banaanayd barnaamijkaas inuu hirgalo wuxuu noqon karay tashwiish ka yimaada ama kiis laga furo daaqada kale ee ah dhinaca caruurta oo aabahoodii Allah u naxariistay uu geeriyooday qabiilkiisa iyo dadkii ehelku waa dhankiisa laga soo galo haddaba Sacuudiga waraaqad ayaa xalay saq dhex naga soo gaartay warqadaas waxay ahayd ama u qornayd in awooga ilmaha Luul Cabdicasiis Allah u naxariistay ee ninkii geeriyooday u dhashay ay ma ka qaadanayaan taasoo culays keeni kartay balse waxaan la xiriirnay culimo xaq diiniin waxay sheegeen inaysan ansaxmaynin odayga aabaha Luul uu dhalay dhiiga isaga uu leeyahay sidoo kale tana maxkamadda warqadan ba aysan soo gaarin maxkamadda sare inaysan warqadan soo gaarin ayay sheegeen okay haddaba maxaa warqadan ay tahay sax ahaanteedu ilaa intee gaarsiinta warqadan way saxan tahay oo waxay ka soo baxday ama ka timid Sacuudiga ninka meesha ku sawiran ilmaha awoow mu yahay mase waa dhax ka tuur waa sax waayo awoow u yahay waa la soo xaqiijiyay laakiin malala qaba oo dadka ilmaha kaligii ma dhaline oo abuu uma ahane ehelka kale mala qabaan may xitaa waxaan maqalnay in ilmihiisa isaga ay ku kaceen oo yiraahdeen waana ceebays gabdhaan nahay yiraahdeen gabdha isaga u dhalay waana ceebaysay annagana sidaana Britain yeel lahayd leeyin marka xogaa dib u gurasha ka imaan karta meeshaas ninkan waxa la sheegay inuu Sacuudiga joogo loogana faa'iideysanayo dana gaar isaga u ah oo wadankaas uu ku joogi karo iyo arrimahaas oo luuq laga soo galiyay mashruucan ma dhaqan gali karaa waa xaalad runtii wax walba laga fili karo laakiin ma caga badna ma raja badna macnaheedu in uu dhaqan galo oo Sayid Cali sida uu ku badbaado Sayid Cali hadda waa xukun sugay waxa xukunkiisa laga yaabaa inuu qaato bilooyin inkastoo dawladda ay dadaal dheer iska saaraysay sidii kiiskan loo soo gabagabeyn lahaa oo waxaad ka fahmi kartaa xawaaraha uu ku socday maxkamadda gobolka iyo sidoo kale maxkamadda racfaanka tan sare wali maysan aqbalin kiiska waxa noo la xaqiijiyay in iyadu codsi ay tahay oo kiiska loo soo bandhigto waxa u banaan marka inay dhahdo waa aqbalnay makeena aan kiiska galno ama inay tiraahdo may kuwii hore ugu raacay taasoo qalbi jab ku noqon karta Sayid Cali maxaa hadaba warqadan kadib ka dhashay waxa fahmay warqadan inay soo culays badan ku yeelanin qoyska Luul Cabdicasiis sababtu waxay tahay kama aysan hadlin ma danaynin ma sii buuqin shir jiraa'id maysan qabanin warbaahintii aad looguma gelin waxa fahmay warqada miisaankeeda inuu yeeliyo marka walwal badan maysan abuurin warqadan marka laga soo tago dhalinyaro asxaab ah ama warbaahinta ah oo u aragtay in warkan uu yahay war news abuuri kara balse ma jirin falcelin ka dhalatay oo dhinaca qoyska gabadha Luul Cabdicasiis maxamed Allah u naxariistay ka yimid Sayid Cali qorshe kasta oo lagu badbaadi karo looyarkiisa oo isku dayay waa sameeyay oo soo bandhigay doodu waa kululeed balse natiijada aadi u cakrantay oo sida iyagu rabeen maysan noqonin xabsiga dhexe hadda oo ku jiro oo ku sugayo xukunkiisa waxa la sheegay ninkan inuu la mid yahay maxaabuusta isla markaana uu sugayo mar kale racfaanka ama ay rabaan rajada ay ka leeyihiin in kiiskooda mar kale garmaqal laga furo iyadoo maxkamadda sare ay galayso kiisaska maxkamadda sare ay gasho caadiyan intuu ku dhamaada inta badan wuxuu ku dhamaadaa kiisaskaas in uu ku waji noqdo ama ku qaab noqdo kuwii hore ay u gaareen maxkamadda gobolka Banaadir iyo maxkamadda racfaanka laakiin iyagu markasta way rajeynayaan inay mar kale helaan fursadaas oo isku daygu ma yara haddaba ninka awooga sheegtay ee ilmaha ee aan xaqiijin inuu sax yahay ayeeyda ilmaha iyo qoyskiisa intiisa kale waxay aaminsan yihiin warka odayga ka soo baxay inuu yahay
war lagu qalqaaliyey qofna uusan tashi ka gelinin iyaguna marnaba aysan noqon karin dad dhiig gabar miskiin ah oo iyadoo uur leh la daadiyey oo lagu xadgudbay oo xaqdaro loo dilay inay ku doorsadaan diyo iyo arrimahaas waxaa xitaa aniga aan xog ogaal ku noqday kuna maqlay in ehelka ilmaha dhinaca kale ka xiga ayeeye iyo u ah eedooyinka u ah inay sheegeen in xitaa haddii odayga uu maaldoon yahay ayagu ay bixinayaan macnihii waxaa fahmaysaa kiiska in ay labada dhinacba labada qoys ka go-an tahay in cadaaladda uun marada saas wejiga looga feedo sida cali inuu yahay lagu hubsado qofka falka lagu fulin doono dilka toogashada ama way si kale aysan ku qancinin sida cali koleyta waa ka qoomameyna hadda go-aankii hore uu qaatay oo ahaa inuu afadiisa nafta dhaafiyo dadka inta badanna waxay kiiskan ka sugayaan natiijadaas oo noqon karta in la arko cadaaladii oo shaqaysay hadda waxaa kasoo guuleystay oo indhaha shacabka iska leexiyey maxkamadda gobolka banaadir iyo maxkamadda racfaanka labadaba waxay qaateen go-aan saxa oo waa iska duweyn waxay yiraahdeen annaga xaq daro uma helin karno xaqan u helinayna wax fiican u ahaa laakiin hadda si kasta oo barnaamijkan loo soo dhisay loo socodsiiyey warqaday kusoo biishooto warqadiina ma shaqeynayso warqadan yaa sameeyey markii warqadan nin qunsul ah oo weliba ka tirsan safaaradda sacuudiga oo la sheegay inay xigta ahaana isxigaan ninka odayga ah ayaa ninkan odayga kula kulmay sacuudiga ka dhaadhiciyay in barnaamijkan la sameeyo isla markaana u sheegay ballanqaad lacageed iyo sidoo kale in loo sameynayo iqaamo iyo waxyaabo lamid ah oo waddanka sacuudiga lagu joogayo qofka markuu wax walba dantiiska arko reer galbeedku waxay yidhahdaan conflict of interest marka macnii qofka danta ayaa mararka qaar waxuusan rabin ku riixi karta waxaa fahmi kartaa ilmo hooyadood la dilay asoo awow ah odagan in uu ku qancay in sawirkiisii iyo wixiisii xigashadiisa lasoo qaato lasoo bandhigo waxaa fahmi kartaa isagoo ciddiisina aan kala tashanin in xoogaa fudayd badan uu ka jiray dhinaca kaletana waxaa noola xaqiijiyay xitaa in markii xaaladdu jirtay ama ilmahanba isagoo kasoo warqabaya aanay jirin ninka awowga ah xiriirka markii hore uu soo sameyn jiray waalidnimo ma muuqanin marka inuu hadda matalaad noocaas sameeyo malaha dhanka culimadana diin ahaan xaggeeda waxay sheegeen in odayga markasta uu xaq leeyahay sidoo kale qareenadii aan la hadalnay oo aan wax ka weydiisay xog sugna aragtiin mugtahay waxay sheegeen iyaguna in kiiskan uu cad yahay warqadaas iyo wax lamidana aysan baaji karin in cadaaladda lagu fuliyo ninkaas waxa kaliya ee la sugayo ay tahay maxkamadii sare ee codsiga ay u dirsadeen iyo waxa ay kaga soo warcelis mooye wax kale oo kiiskan kaga haray inaanay jirin waana sax waxaa fahmay labada stage uu kasoo gudbay gobolka banaadir racfaanka marka wax aad u sahlan ma aha in warqadan ay dhaqan gasho ama warqadan ay kiiska wax ka bedesho mana gaarin xafiis dowladeed oo sida maxkamadaha dalka ah warqadan absolutely warqad sumad xitaa kusoo baxaysa sax ahaansha ah ma aha waxaa ku dhex qoran ujeediin warbaahin magac baas loo sameeyay waxyaabo iskaga jira ma cadda wixii kasoo kordha warkan sugan annagaan soo gudbinayna mana loo baahan in stress lagu dareemo arrintan waa cadiyaa kiiska. Salaam calaykum.